السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن أو وناكسن دمان أخيارتا نلا سعوتاي كنا soo dhawaada dhacdo la yaab leh oo ka dhacday dalka Mareykanka. Steve waa nin u dhashay wadanka Mareykanka. Waxa uu baraha bulshada u isticmaalo ku faafiyay sawir muruga leh oo ay ku heliso ayeeyadiis oo meyd ah. Isaga oo markaasi ku faraxsan in uu dhaxli doono lacag ay akoonkeeda kaga tagtay taasi oo cadadkeedu ahaa 900,000 dollar. nasiib wanaag farxadii Steve muddo badan ma sii jirin sababtoo ah waxa uu aaskii ayeeyadiis kadib ogaaday in guud ahaan lacagtaasi ay goor hore bixisay oo ay ugu tabarucday urur ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada iyo kaalmada dadka saboolka ah ama faqriga ee ku nool dunida dacaladeeda. dhacdadan ugu qosolka badan iyo la yaabka ku noqotay Steve ayaa waxay tahay in uu qolka dhexdiisa ka helay warqad ay ku qoran tahay ayeeyadiisa ee u qortay ayeeyadiisa ka hor inta aysan geeriyoonin. waxa ayna fariinteedu ku bilowday: eygeyga yar Steve, waxaan kaaga tagay usha la cugsado ee awowga uu lahaa iyo ilkaheyga macmalka ah oo ah ilkaha dadka waayeelada loo geliyo ee ku jira qasnada. waxaan rajeynayaa in labada lugood ay ka go'i doonaan, ilkahana ay ka daadan doonaan ama ka dhacaan si aad uga faa'iideysato qalabkaas. hadda la wareeg alaabtaas muhiimka ah inta aysan ku imaanin reerka cusub ee aan guriga siiyay. already guriga uu degan yahay ninkaas oo alaabta ayeeyis waraqada ku arkayo waa ay bixisay. waxaana kula dardaarmaysaa inta aysan imaanin dadkaasi in uu alaabta kala baxo. si kastaba dulucda sheekadan ku jirta waxa ay tahay in aan waalidka iyo dadka aad kasbato una naxariisato inta ay ifka ku nool yihiin. waxaa yeelay halkaas waxaa laga dareemayaa in waalidka ninkaasi dhibaato uu ku hayay, saas darteeda ay maanta waraaqada u qorayso inaysan uga tagin hal shilin. waxaa kaloo halkaas laga ogaanayaa in uusan qofka marnaba ku tashanin ama ku xisaabtamin wax aanan ku jirin jeebkiisa. fadlan adiga oo mahadsan shaya dheh oo la wadaag asxaabtaada inta kaleeto. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.